waxaa maanta halkaan iskugu nimaadnay inaan ka qayb qaadano oo dhibka la qaybsano ilaahay baa dhibta qaadi kara dadka walaalaheena oo tabaalaysan ee reer Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Nugaal degmada Garowe tuulooyinka hoos yimaada oo aan u tabarrucayno biyadhaankan waxa isu soo taagay gabdhaha gobolka Nugaaleed kuwooda maqan iyo kuwooda joogaba haddii biyuhu la helo wax kale oo badan oo dadku u baahan yihiin baa dadku waa dad tabaalaysan marka waxaan rabnaa inaan intaas gurmadka abaaraha lagu joojine ilaa dadka meesha ugu dambaysa laga ogaanayo iyo reerka ugu dambeeya xaaladooda inay gabdhuhu waa ku mahadsan yihiin kuwooda dibadda jira kuwa dalka jooga oo annagu ka mid nahay oo maxaa ay xoogooda ku tabarrucay oo xoolahooda la doonayay inay ku tabarrucaana waxaan u soo jeedinaynaa sidaas si la mid ah inay dadkooda ugu istaagaan bulshada reer Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa Ilaahay uga rajaynaynaa inuu barwaaqo iyo roob iyo risq deeqa u siiyo u soo booqday gabdho ka socda reer Garowe Nugaal ka socda waxayna noogu yimaadeen qayladhaan biyo ka jirta abaaraha ka jira wadanka qoladan baabuurleyda ah iyo deegaanka rabaable in aan barnaamijka ka caawino waa u jeedaan waxa goobtan taagan gaadiidkii booyadaha gabdhuhu waxay keeneen 30 booyadood bay sii daayeen waxayna noo xil saarteen in aan goobaha dhibtu ka jirto geeyno si u kala liitaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان أنا عاود كلاصو هاللينو وتورد سلاحله أو كتيرسن قبر كنوجال. حتى لو بيجود أي نسوق جاري أو واحد تاجنا هاي بركض بيها لو شوفي قبلها يجوز القامي أو أجرمنا إياه ضدك أبارو سامين سيدا وركتها. وحنو أحكي عدد ونكسين يهين كوا نوكين إنه وجم هاد علينا إننا waxaan halkan uga mahad celinayaa gabdhaha reer Puntland dal iyo dibadba oo naftooda iyo maalkooda u soo huray waxaan leeyahay gabdhaha dibadda jira oo noo fududeeyay inaan hawshan u qabanno aad baad u mahadsantihiin waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan cid allaali cidii ka qayb qaadatay barnaamijkan oo iyadana noo fududeysay waxaanu leenahay waa mahadsantihiin saxaafadda iyo gabdhaha iyaga ma u heelan oo caruurtoodii iyo guryahoodii ka soo tagay oo ilaa iyo saakay goobtaad arkaysaan iyo meesha hadda aan taaganahay tan iyo saakayna waxaan joognay qorax haddana waxaan joognaa meel qabow oo neecawdu ka dhacayso oo miyi oo baadiya baan joognaa aad baan ugu faraxsanahay habeen iyo maalina waxaan u taaganahay shacabkayaga iyo dadkayaga inaan u shaqayn doono hadduu idinka Ilaahay ka dhigo annagoo volunteer iyo naf iyo maalba u horeyna marka waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin dhamaantay بوندو ما أنت من الكاهدي من الجمرمي هذه اللي بوندات بلح أفر قاري بقول ورنا أحمد فارح ما هو بحياك أفر قارينا مقعابه maanta waa maalintii labaad maalintii hore waxaan dirnay 13 booyadood maantana waxaan dirnay 19 booyadood marka maanta waa kala qayqayminaha booyadihii qaar meel baan u dirnay afar baan u dirnay dadkuna biyuhu kuma filla marka asaasaan u kala qaybinay
الحمد لله رب العالمين دنبجنا الله رافيك وارثين بن أنا وحنا سوجاري بيان سوجاري بيها هير قلدير هدانو نهاي وأنا سوجارين وحنا ودورين نادر ولا بيهين وأنا سوجارين وهو حوله عباية ضميره يا أورتي أريهنا والله صوّدا وحنا ربنا دوشينا نقولين ما ركتي يدلكوا عب وحنا نقول كسوق عكرنا بابور تنبان وكحينا هدر وحنا ربنا نقدر ورابينه بيها سوّنا سوجارين وأنا ما سنتين قبلها يوانا ما سنتين قربكنا الله قالوا قبلها يولا الله ينلشوا يكون بقى قربكنا الله قالوا هاتنا هديلي وحنا قديم من وانوس وسعدان وانوس يكتير iyada oo dhibaatadaas ay ahayd biyo la'aan ta ugu weyn ay ahayd biyo la'aan haddaba marka si fiican ayaa ilaahay baa loo gaarsiiyey biyaha maanta ahaa dhulkaas miyiga iyadoo ay aroori waayeen xoolihii ama geel ha ahaadeen ama ari ha ahaadeen meelana ay u aroori kari waayeen ayaa maanta biyaha loo geeyey haddana marka roobkii raxmaddii baa ilaahay u soo furay intii soo aabushay waa ku mahadsan yihiin iscitixgelinta iyo isalqaanka bini'aadanimo ay salqaameen gabdhahaasi qayrkeeda iyo ajirkeeda allaha siiyo barnaamijkaasina waa barnaamij galay sidaasoo kale ayaa wax laga doonayaa markii maaragtay waxyaalahaas kale yimaadaan in maaragtay layska taakuleeyaho dadka muslimiinta in iska caawiyaan sidaasaa khayrka lagu helaa halkan waxaan uga mahadcelinayaa gabdhihii lacagtan soo diray dadkii aan biyaha u goynina ducooyin badan bay inii akhrinayeen akhriya adduunka waa ilaahay ama aan akhrina ilaahay jannadii haynigeeya